mashaariicda horumarineed ka socda deegaamo badan oo Soomaaliland waxa gacan mug iyo miisaan la ka geystaa marka laga yimaado dawladda Soomaaliland qurbajooga bulshada iyo daljoogta gaar ahaan inta fahamsan qiimaha uu leeyahay wax wada qabsiga iyo iskaashigu muuqaalkan duuladeedin muuqda waa tuulada dhagax dheer oo ka tirsan gobolka Togdheer dadka ku dhaqan guud ahaanba tuuladani waxay u badan yihiin xoolo dhaqato marka uu waagu bariyo ay u sii shirtagaan gudaha magaalada inkastoo ay galinka dambaba ay ka carabaan marka ay ka dhameystaan danahooda gaarka tuulada dhagax dheer dadku kuma badna sida idin muuqata laakiin waxa ay leedahay dugsi aad u ballaaran oo ay wax ku bartaan arday tiradoodu ay ka badan tahay dhowr boqol oo arday kuwaas oo guud ahaanba qoysaskoodu ay ka soo jeedaan xoolo dhaqato horumarka tuulada dhagax dheer waxa gacanta ugu mudan ka geysta qurbajooga masaajidkan idin muuqdo ah masaajid cusub oo dhawaan la dhisay ayaa dhaqaalaha ugu badan waxa ku bixiya qurbajooga deegaankan u dhashay sababta kaliya loo dhisay waxa ay tahay in caruurta ku dhaqan tuulada dhagax dheer ay hesho goobo lagu kobciyo aqoontooda diiniga maadaama ay hore u haysteen mid maadiya xaflad ballaaran oo lagu daahfurayo dhameystirka dhismaha masjidkan ayaa lagu qabtay gudaha masjidkaasi waxaana halkaasi loogu duceeyay cid kasto dhaqaalaha ku bixisay dhismaha masaajidkan ilaahay baan u mahadnaqaynaa mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa dadkii hawsha iyo masaajidka dhiskiisa ka qayb galay ilaahayna waxaan uga baryaynaa jazaay khayr leeyno ilaahay ka mariyo yakana dadkaasna waa u ducaynaynaa masaajidkiina iminka qol martiyeed iyo malcaamad labadaasa u hadhay labadaa horta muhim labadaa waa masaajidku kama maalmi karo waa u baahan yahay inuu dhisnado guri la dhiso waxa ugu khayr badan baytullaahi baa ugu khayr badan waa masaajid wax ka khayr badan guri ka khayr badan lama sheego ilaahi mahad marna waa farxado qofka islaamka meel uu joogo hadduu maqlo masaajid baa la dhisay wuu ku farxa taana waxay farxadu tahay islaamka marka horta waxa weeyaan haddii khayr laga shaqeeyo diyaadiyadana waa lagu faa'iideeyaa aakhirana waa lagu faa'iideeyaa masaajidkan ayaa waxa uu yahay mid aad u bilicsan quruxna dadkii dhisay ay u dhameeyeen si ay ilaahay ugu caabudaan waxa uu wax badan ka bedeli doonaa baahidooda diiniga inkastoo ay sheegeen in waxyaabo yaryar ay ka dhiman yihiin kuwaana ay ka rajeynayaan dadka qurbajooga iyo dadka deegaanka u dhashay